duqa degmada Saylac ayaa qalabka isgaarsiinta u gaarka ciidanka ku wareejiyay saraakiisha booliska qaybta gobolka Sanaag iyo kuwa saldhigga degmada Saylac. Wareejintii qalabkani ayaa waxa goobjoog u ahaa barasaabka gobolka Sanaag iyo ku-xigeenkiisa mas'uuliyiinta degmada Saylac, taliyayaasha booliska qaybta iyo saldhigga degmada Saylac iyo waliba qaar kamid ah laamaha dawladda ee gobolka Sanaag. waxaa goobtani ugu horeyn hadal kooban ka soo jeediyay maayirka degmada Saylac mudane Xuseen Iidla Barkhadle. qalabkani raadiyo gacanta ah taasoo aan ku tayeynayna booliska degmada ee gobolka si ay tayadooda iyo isgaarsiintooda u noqoto waqtiyada hawlgalka ah mid isku dubadhacsan oo damaanad qaadan oo security ah xaaladda in helaan oo keenay waxa kale oo isaguna halkaasi hadal mahadnaqa uga soo jeediyay maamulka degmada taliyaha hawlgelinta ciidanka booliska ee gobolka Sanaag Dhamme Axmed Cabdullaahi Kaahin Fadan. runtiina qalabkani waxa weeyaan qalab aad u qiimo badan waxyaabaha booliisku ku shaqeeya ayuu ka mid yahay xagga shaqada marka operation-adu socdaan inta mid ee uu yahay ayaa hal mar lagu wada hadli karaa shaqada lagu jiro ayuu aad u caawinayaa runtii waan soo dhaweynaynaa waan ku shaqeyn doonaa ugu dambeyntii waxa halkaasi hadal kooban ku soo afmeeray barasaabka gobolka Sanaag mudane Dr. Axmed Naasir Maxamed Xaashi. waxaan u mahadnaqayaa maayirka degmada oo qalabka soo gaarsiiyay gobolka taasoo wax tar weyn u ah wax ka bedeli doonta qaabkii loo hawlgeli jiray ama loo shaqeyn jiray xagga nabadgelyada. qalabkani waa qalab ciidan waa qalab nabadgelyada iyo operation-nada wax badan ka bedeli doona. wareejinta qalabkani ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli qabanqaabada xuska 18 May si ballaaran uga socoto guud ahaanba gobolka Sanaag taas oo ka duwan sanadihii hore. Maxamed Cawaala Daahir, Radio Hargeysa, magaalada Saylac.